بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومسينا حضرة الشهور السلافين صاحب ذلك أنا وماسكين ما توعدنا عن حرمه هذا هو الشباب وقلتي إذا كنت بيستدعي أنا أقول بلان الدين شباب الضحك يا شباب الرقص تبوي كنا سوا كهذا سلاسل من الوجران مركا سلوكتي بدأت سوا مالدا وضد دجال صفية كسوة بحايا ولد باليه وحواليه الفضيل يكون هو يصير الربيع ومشى قيان بربطي ولد سامين في سياق جشتا مركا هولها مركا إدعانا مع تهادو لماذا وحي لما تقاسين عن ضد كدنيستا أول بلد لناي وحصوصات وأدو يوم كنا ساموي أمريكا يقربوا في جال دلك مركز هذا لسعتي مرش بريان وحي لسعتي وسيد ولسعتي سامينتا أم فعلنا وفيها التي بيها وفيها شيء لوضع شباب لوضع قبل يقول دلنا أو شباب قبل شباب الله دحى يقول شباب الله بس كارهان دمنا بلعت يتولون كل حريرة دمنا أفكار يتولون كل حريرة waxyaabaha naloo soo sheegay waxaa ka mid ah afkooda oo kala biyuhu inay masaajid xataa inuu usbuuc xiran yahay marka maadaama ay sidaas tahay dadka soomaalida waxaa looga bartay marka duruuftan oo kale ay timaado in la isgarab istaago oo dadka dhibaatadu gaartay gacan la siiyo gaar ahaan dadka waxaysta madashuna dadaal ay waddaa arrintaas looga jawaabayo ama dadka ha boodiso ama ayadoo laftigeedu dadaal dhinaceeda ha muujiso marka waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysano fursadda aan ugu baahno dowladda iyo maamul goboleedyada iyo maxaan ku yiraahdaa hay'adaha gargaarka adduunka inay caawiyaan dadkaas garab istaagaan si gaar ah waxaan rabnaa inaan ula hadalno dadka waxaysta Soomaalida Ilaahay wax siiyey maalinta la rabo inay dadkooda garab istaagaan maanta kala waaye marka waxaan leenahay garab istaaga dadka dhinac kale marka laga fiiriyo in marna daadad dadka ay qaadaan marna abaare ay jiraan laftigeeda waa arrin maskaxda aan ku hayno u baahan in aad looga fikiro webigan waa khayr ilaahayna siiyey ma labada webiba aan dhaho laakiin haddana marna waa guraan marna biyo badan ay keenaan dadka qaar waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan roobka dartiis waa laakiin sida nala xaqiijiyey waxa ugu daran oo saameynta ugu xoogan yeesho waa webiga saameyn waa leeyahay roobku xalay waxaa la socotay in magaalada Muqdisho meelo ka mid ah ay dhibaatooyin oo roobku geystay oo ay soo dumeen marka inta ku dhibaatoodana dhibaato ka soo gaartana allaha caawiyo muhiimadda aan usoo istaagno waxa waa in loo istaago dadkaas in la caawiyo waana arrin waajib nagu ah oo la rabo inaan ka wada qayb qaadano gaar ahaan dadka ilaahay oo xoolo siiyey oo maanta awoodi kara inaan waxba laga yaraysanin qof la arko inta tabartiisa oo kari karo inaan la fududaysanin kasoo qaad maanta oo u baahan inuu garab istaago dadka dhibaatada gaarto waa sidaas oo kale marka haddii aan la dhaqaaqi karin oo dadkii guryahooda ay ka baxaan roobka waxaa la socda cudurro kanaaca iyo waxyaaba badan la socda marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan baa loo soo gurmado guda iyo dadka dibadda jooga laftigooda waxaa laga yaabaa inay wax uun ka qayb qaadan karaan inta ay yihiin dowladihii ku howlanaay oo usoo dhaqi jiray wanaagga iyo inay dadka garab siiyaan ayagana annaga uga mahadcelinayna wixii hore ku sameeyaan haddana waxaan leenahay sidoo kale baahida weli waa taagan tahay waxaan rajaynaynaa inaan gaarno webigaasna inuu biyihiisa noo haayo marka ay bataan meelo lagu kaydiyo aan samayno insha allahu tabaaraka watacaala si fiican looga faa'iidaysto dadkaan hadda maalin walba dhibaatadu haysato inay dhibaatada ka baxaan oo ay noqdaan dad ka qayb qaata adduunka wax soo saarkiisa ay ka qayb qaata inay noqdaan rajaynaynaa oo gacantaaga iyo baahida laga baxo laakiin haddana waxaad ogaatiin marka dhibaatadu jirto lagama indha daboola karo waa in mataqaanaa farta lagu fiiqaa la isgarab istaagaa dalkaan haddisaan ahaa jirana waa ka ficnaa jiray marka annaga nagu xirantay inaan dadaalno oo aragti fiican oo dalka uu ku horumari karo oo keeni karta in dalkaan oo ka baxa dhibaatada inaan ka shaqeyno waxaan aaminsanahay maanta in aragtidaas ay ku weyn tahay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba
waxa muhiimka ah taas waaye oo in laga baxo dhibaatada ah marka aad iyo aad u mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh madaxweynaha dhameeyey waa kulanka maanta intaas oo ku ekaan dadka Soomaaliyeed ee waxa haysta weliba Ilaahay wuxuu Allah u barakeeyay in dadkaas walaalaha ah oo dhibaatada ay soo gaartay in la kaalmeeyo muhiimadda ugu weyn waa intaas madasha xisbiyada qaran insha Allah taala wixii karaankeeda ah ayay uga qayb qaadan doontaa gurmadkaas sidii maro hore badan dhacay oo uga qayb qaadatay kana haddii aad leedahay way ka qayb qaadanaysaa laakiin haddana yani kuma filin inta isu tagna moogi hadda qolo oo hal qolo oo waa ku filan tahay la leeyahay meesha ha aada ma jirtee aan xooggeena isu geyno saxaafadda Soomaaliyeedna in ay dadka Soomaaliyeed tusto dhibaatada iyo duruufaha dadkaas haystaahay aad iyo aad muhiim u tahay mar kale waxaan raacayaa codkii madaxweynaha ee ah dadka Soomaaliyeed inta Ilaahay wax u dhiibay walaalooda Soomaaliyeed ee maanta baahan ee dhibaatadaas ay la soo dirsay iska xamaasho iska shaqaysto noloshooda haystay ahaan jireen laakiin maanta duruufo gaar ah yimid oo kalifaya in maanta loo gurmado oo muxuu ahaa duruufaas gaarka laga bixiyo waaye warka ugu weynsan marka aad iyo aad u mahadsantihiin muraadku waa intaasa aan meel kastoo ay joognaba aanu istaagno walaalahayna maanta duruufaha gaarka kooban ay soo wajaheen muddada kooban ay duruufaas ku jiraan wixii aan la gaari karna aan la gaarno midda kale madaxweynuhu oo ka hadlo mustaqbalka fog iyo mushkiladaha soo noqnoqotay sidii loo daweyn lahaana dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda iskaashaday u baahan tahay ayadana waqtiga u baahan tahay waqtigeeda muxuu ahay ayadana iman doona diyaarada aad iyo aad mahadsantihiin maadaama soo muuqateen waa saxaafadda soo istaagteen maxaa jira arrin siyaasadeed oo mustaqbalka siyaasadda doorashada ah oo Soomaaliya ayaa lagu haya oo madaxdii jiraan mowqifka madasha xisbiyada qaran dad badan ayaa sugaya waxaa laga filan karaa Soomaaliya iyo mustaqbalka doorashada aad iyo aad u mahadsantihiin anagu madasha mowqifkeeda ku aadan doorashada ma qarsoona qoraal ahaanna waa horaan idaacadaha waan ka sheegnay shaqooyin badan oo ku saabsan doorashada oo muddo hore in lasoo qabta ay ahayd oo lasoo qaban waayay ayaa jira maanta waxaan joognaa muxuu ahay bishii July yaan sii gabagabadeedii aan kusii jirnay August iyo September October 15 waa waqtiga oo senator ama xildhibaan ugu horeeyay baarlamaanka waqtiga la doortay waaye ilaa muxuu ahaa sida la sheegay December afkii la gaarayna waa baarlamaanka xilligiisa ku egyahay madaxweynuhu waa ka sii baxay waxa asalka doorashada Soomaaliya ka asalka waa baarlamaanka haddii baarlamaan aanu joogin jidkan aan ku soo jirin oo aanay muuqanin sidoo baarlamaanku imaan lahaa waa arrinta khatarta leh oo aan ka diiday in faraaq dastuuri ah crisis dalka galana in badan ayadana aan dawladda iyo hoggaanka maanta joogo laakiin weli waxba kama soo saddex sano ay bartan soo dhaafan waxba lagama qaban maanta oo gabagabadii la joogan weli wadada la aaday afartii su'aalood ay sheegi jirnay weli la jawaab looma hayo doorasho ma dhacayso maanta qof si rasmi uga jawaabi karo waa dhici kara maaha doorashada dhacaysa waa nooceen lagama jawaabi karo ayada muxuu ahaa yaa maamulaya lama garanayo weli doorashada marka su'aalahaas waa kuwa weligeed sheegi jirnay su'aalaha hal laga jawaabo haddaa aragtada xasuusteen waa su'aalihii 2017 bilowgeedii gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari uu yiri waxa loo baahan yahay waa maanta shaqadeeda hal qabto waraantii 2000 uu yiri 2019 doorasho lama qaban karayaan la leeyahay maanta hadii la qaban karo ama la qaban karo doorasho 2019 ka carray ku qiimeynaa Jawaari gudoomiyaha Jawaari laakiin 2020 bartamaheedii ka bacdi doorasho lama qaban karo isla la leeyahay marka arrin waa waqti midaas muusamareeb waxba ka socdo labadii maxaa la kab dawladnimada Soomaaliya ay leedahay dawladda dhacay dawladda isku tagay waa rajaynaynaa muxuu ahaa in ay wax fiican oo ummadda Soomaaliya ku farxaan oo ummadda u fiican oo dalka jaha u yeelo oo ka jawaabo su'aalahaas inay ka soo baxaan waa rajaynaynaa sidaas aan ugu ducaynaynaa laakiin sida rasmiga madasha mowqifkeeda waxa waaye doorashada maadaama wixii la soo qabto loo baahan la qaban waayo doorasho kasta noocay doonta ha ahaatee oo inta laga wada tashaday dadka Soomaalidu isku raaceen oo isla ogolaaday ma aha inta muusamareeb joogto kaliya macna inta ka maqanna inta loo soo bandhigay oo loo yeeray ama loo yimiday laga tixgeliyay ogolaadeen doorashadaas aan madasha doorasho ah mid gaar ah madashu ay leedahay oo ay gooni u cararaysaa ma jiro waxaan rabnaa doorasho wada ogol ah raali laga yahay maadaama sharcigii
doorashadii loo sameeyey iyo waqtigii loo sameeyey kuma qabsoomi karta la yiri oo guddigii madaxa bannaanaa uu yiri oo dowlad goboleedyadii ay muxuu ahay baaqo ugu horreeyay musuqmaasuq ka soo saareen ahayd doorasho qof cod ma dhici karto maanta marka wadatashigaasay joogtaa wixii lagu heshiiyo oo la isla qaato taasaa doorasho model u ah muxuu ahay madasho taasayna taageersan tahay marka kadibta degdegina waa idin joognaa maanta waxaa la rabaa inaad adiga laftigiina kala raba inay ka qayb qaataan dadka inay noo gaarsiiyaan marka siyaasadda u kaadsada shir markuu soo dhamaado shiraad ku yeelana waa la kala jaa